bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal ku soo dhowaada qodobada wararka TV uu saaka idin haayo odayaasha beesha Abgaal iyo Habargidir oo go'aan ka gaaraya xaaladda xamar Axmed Madoobe oo hubka dhigis ku sameynaya ciidamada taabacsan dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Muqdisho u soo duulay kadib burburkii shirkii Garoobe Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo aan door muuqda ku lahayn shirkii Garoobe akhbaaraadka caalamka ee saaka aad ku daawan doontaan wararka TV-na waxaa ka mid ah imaam 100 jir ah oo kaniisad galay intaas waxay ahaayeen qodobada saaka ugu door karoon wararka TV haatanna ku soo dhawaada iyagii oo faahfaahsan aan ku bilaawno shabakada wararka TV ayaa ogaatay in odayaasha dhaqanka ee matala dadka degan magaalada Muqdisho ay dhamaadka toddobaadkan Muqdisho ay ku yeelan doonaan kulan looga tashanayo dhibaatooyinka ka jira magaalada Muqdisho odayaashan ayaa shabakada wararka TV u sheegay inay dhib badan ay wajahayaan dadka ku nool gobolka Banaadir oo ah canshuur bixiyaal isla markaasina ay kala kulmayaan dawladda federaalka Soomaaliya kulankan ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco guriga Senator Muuse Suudi Yalaxow oo ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir oo ah kulankan kii ugu horeeyay ee lagu qabto halkaasi odayaasha ayaa sheegay in Muqdisho ay ka jirto xaalad aysan weligeedii soo marin oo aysan kala kulmin dawladihii dalka soo maamulay sidoo kale waxa ay sheegeen in dhawaan soo saari doonaan go'aano lagu badbaadinayo dadka ku nool gobolka Banaadir oo wajahaya xaalad adag oo aysan ku sii noolaan karin sida ay xaaladani tahay kulanka toddobaadkan oo la filayo inuu qabsoomo Khamiista soo socota ayaa la aaminsan yahay in dhinacyada ay ka soo saari doonaan baaqiyo haddii ay dawladda Soomaaliya ay wax ka qaban weyso ay soo saari doonaan go'aano xal u noqon kara Muqdisho sida ay noo sheegeen odayaal ka tirsan waxgaradka arrimaha ku howlan Khamiistii la soo dhaafay ayaa kulan ay ku yeesheen odayaasha Abgaal iyo Habargidir waxaana ay ku sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay diiday in lagala hadlo una qabataynta ay saartay magaalada Muqdisho iyo dilalka ciidanka booliska Soomaaliya ay u geysanayaan dadka shacabka ah dhanka kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Maxamed Axmed Madoobe ayaa la sheegay in Kismaayo uu ka bilaabay kulamo uu la qaadanayo saraakiisha ammaanka ee maamulka Jubbaland gaar ahaan xubno aad ugu dhow maamulkiisa saraakiisha ka tirsan militariga Kismaayo ayaa shabakada wararka TV u sheegay in saacadihii la soo dhaafay uu u yeeray dhowr saraakiil iyo la taliyaal ee uu leeyahay oo dhanka ammaanka ah waxaana ay ka wada hadlayaan xaaladda magaalada Kismaayo iyo doorashada 2019 ee hoggaanka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa saraakiishiisii uu la kulmay u sheegay in Kismaayo uu ka bilaabi doono qorshe hubka looga qaadayo dhammaan ciidamada hubeysan ee taabacsan dawladda Soomaaliya iyo ciidamada kale ee ka tirsan maamulka Jubbaland ee ku dhow musharaxiinta qaar arrintan ayaa u muuqata beegsi loo geysanayo dhammaan saraakiisha iyo mas'uuliyiinta ciidan ee loo geysanayo taasoo sababi karta inay ka hor imaadaan Axmed Madoobe kuwaas oo loo fiirin doonin oo kaliya in dawladda ay ku tiirsan tahay balse sidoo kale la dhexraadin doono ciidamo iyo waliba saraakiil Jubbaland ah howlgalkan waxaa lagu wadaa inay ka qayb qaataan ciidamada Kenya oo ku sugan Kismaayo kuwaas oo la aaminsan yahay inay daacad u yihiin hoggaanka Axmed Madoobe maadaama ay dano dhaqaale oo badan ay ku qabaan gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo qorshahan Axmed Madoobe ayaa qayb ka ah dadaal uu ku xaqiijinayo in dawladda Soomaaliya aysan awood u yeelan inay farageliso doorashada maamulka Jubbaland ee dhawaan dhici doonta waxaa aad looga cabsi qabaa in Kismaayo mar kale ay martigeliso dagaal sokeeye oo dhiig badan ku daata haddii aysan xaaladda sidaan wax iska bedelin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo gabagabeeyay safar 9 cisho qaatay oo uu ku joogay magaalada Garoobe ee caasimadda maamulka Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa garoonka diyaaradaha Generaal Maxamed Cabshir ee caasimadda Garoobe ku sagootiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho 9 cisho kadib sagootinta wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa ka qayb ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cali Ismaan Kaarshe mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha maamulka Puntland saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland iyo mas'uuliyiin kale shirka wada tashiga dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ugu socday magaalada Garoobe ayaa gabi ahaanba burburay kadib markii ay isku fahmi waayeen qodobadii shirkaasi looga hadlayay waxaana shalay Garoobe ka soo baxay madaxweynayaasha Galmudug Jubbaland oo sheegay in shirkaas uu socon waayay رئيس الوزراء فدرالك Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa sabdidii isaga soo dhaqaaqay magaalada Garowe kadib markii lagu heshiin waayay shirkii wada tashiga ahaa
dowladda federaalk Soomaaliya ayaa weli ka hadlin sababta keentay inuu burburo shirkaasi iyo in kulan kale ay ku ballameen madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalk Soomaaliya. ugu dambeyntii magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland waxaa guud ahaan ku soo dhamaaday shir looga hadlayay xaaladda Soomaaliya oo ay ka qayb galeen madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalk Soomaaliya kaas oo socday muddo 10 maalmood ah. shirkaan ayaa markii ugu horeysay waxaa lagu ballamay in looga hadlo arrimaha doorashooyinka, dib u eegista dastuurka iyo khilaafka dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada qaarkood. shirkaan ayaa ka dhashay kulan Nairobi ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada Jubbaland, Galmudug iyo Puntland kuwaas oo ku ballamay in madaxweyne Dani uu isugu yeero madaxda maamul goboleedyada iyo labada mas'uul ee ugu sarreysa dalka si ay madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha. inkastoo uu shirka Garowe ku soo dhamaaday fashil iyo heshiis la'aan, haddana waxaa su'aal ka taagan tahay doorkii ay shirkaasi iskala qaateen guul iyo guul darraba madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo kuwa Koonfur Galbeed. xubnaha ka qayb galay shirkii Garowe ayaa shabakada wararka TV u xaqiijiyay in labada madaxweyne aysan door ka qaadan shirka arrimihiisii looga hadlayay ee dooda ugu badan dhexmartay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxda dowladda dhexe. 5 maalmood waxaa shirar gaar ah ku jiray madaxweynaha Puntland, madaxweynaha Jubbaland, madaxweyne Farmaajo, madaxweynaha Galmudug kuwaas oo looga hadlayay khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Galmudug. markii laga gudbay qodobada arrimaha dib u eegista dastuurka, xeerka doorashooyinka iyo deeqaha beesha caalamka ay siiso dowladda Soomaaliya, waxaa marna dooda ku saabsaneyd qaybahaasi ka qayb qaadan madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo kuwa Koonfur Galbeed. qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo midka Koonfur Galbeed ay kaga luntay halkaas waqti joogitaanka magaalada Garowe, isla markaasna ay habooneed inay ka baaqdaan shirkaasi maadaama aysan wax heshiis ah aysan ku lahayn ama baarintaas aysan ka hadlin. madaxda Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa shirka ku soo bandhigin baahidoodii ka jirta deegaanada ay maamulaan maadaama qaarkood ay ku jiraan go'doon ay adag tahay in la iskula gudbo labada dhinac. madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa kursiga waxaa geeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ku bixisay dhaqaale badan, taas oo xitaa sababtay in la soo xiro shakhsiyaad oo kula tartamaya kursiga oo looga cabsi qabay inay guuleystaan. waxaana jirta inuusan taageero ka haysan shacabka marka laga reebo dowladda federaalk Soomaaliya. madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare oo horey dhowr jeer dowladda uga soo horjeestay ayaa lagu kiciyay qalalaase sababay in xildhibaanada Hirshabeelle oo xamar dhaqaale looga dhiibo inay ugu hanjabaan in xilka ay ka qaadi doonaan, taasoo markii ugu dambeysay sababtay in hoos u dhac ku yimaado dowladda iyo xiriirka ka dhaxeeyay labada dhinac. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay labada madaxweyne ka hor inta uusan bilaaban shirka, waxaana labada madaxweyne ka muuqatay inaysan sinaba dowladda dhexe aysan ula xisaabtami karin. wararka caalamka ee wararka TV uu saaka idin hayan waxaa ka mid ah imaamka ugu sarreeya muslimiinta dalka Ghana ayaa tagay kaniisad ay ka socotay xafladda dabaaldegga dhalashadiisa. Sheekh Cismaan Sharabuuta waa nin 100 sano jir ah oo afgaaban, waxaana lagu yaqaanaa inuu nabadda u ololeeyo. mas-uuliyiinta kaniisadda ayaana maamuusay xafladda, sidoo kale waxay u muujiyeen sida ay ula dhacsan yihiin noloshiisa. muftigan ayaa hogaamiye u ahaa muslimiinta laga tiro badan yahay ee dalka Ghana, wuxuuna doonayay in dhaxalkiisa uu u noqdo ololaha nabadda iyo sidoo kale isdhexgalka dalka diimaha kala duwan isticmaala ama leh. dhowaan waxaa baraha xiriirka bulshada si weyn ugu faafay sawirro muujinaya Sheekh Sharbuuto oo dhex fadhiya kaniisad masiixiyiinta ee magaalada Accra xilligaas oo loogu dabaaldegayay munaasabadda Easter. maalinkaas waxaa isagoo imaam muslim ah barbar taagnaa dadka masiixiyiinta ah ee xusaayay munaasabadooda sanadlaha, halka kooxo islaamiyiin ahna ay weerar ismiidaamin ay ka fuliyeen kaniisado ku yaala dalalka Sri Lanka, halkaasoo ay ku dhinteen in ka badan 250 ruux. dadka baraha xiriirka bulshada isticmaala ama falanqeeya ayaa arrintan waxay imaamka ku tilmaameen iftiin ka soo baxaya meel mugdi ah.
se ahaatee tallaabada uu qaaday qof walba kuma uusan faraxsanayn. dadka qaar ayaana ku dhaliilay in ficilkaas uu yahay mid xadgudub ku ah diinta islaamka, maadaama sida ay sheegeen uu ka qayb galay cibaado ka socotay kiniisad. balse sheekh sharubuuto ayaa ku adkaystay inuusan cibaado ku samaynaynin kiniisadda, laakiin ujeeddadiisu ay ahayd inuu ballaariyo xiriirka wanaagsan ee muslimiinta iyo masiixiyiinta. imaamka waxa uu bedelayaa fikirka laga qabo muslimiinta oo ah in diintoodu ay tahay mid daciif ah, qalalaaso badan, nacayb ka buuxa. wuxuuna doonayaa in dadka u sheego in diinta islaamku ay tahay mid nabadeed oo aad jecel looga heli karo nabad iyo weliba is-cafin. sidaas waxaa BBC-da u sheegay afhayeenka imaamka oo lagu magacaabo Armayo Shiabu. sheekh Sharabuuto waxa uu imaamka ugu sarreeya muslimiinta Gaana soo ahaa muddo 26 sano ah. weligiisna waxa uu ku adkeysan jiray in taariikhda diinta islaamku ay yihiin nabad iyo jacayl. qodobadaasi si joogto ah ugu soo qaataa mowduucyadiisa khudbadaha jimcada ee isbuuc walba ka jeediyo masaajidka weyn ee caasimadda dalka Gaana. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa wararkii ugu waaweynaa ee saaki aad ka daawanayseen barteena YouTube-ka ee Wararka TV. waad ku mahadsan tahay daawashadaada warka. fadlan subscribe saar channelka si mar walba aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda.